adigu ilaahay aad jeclaato ayaa makhluuquna ku jeclaanayaan hadba intaad ilaahay adigu aad ka baqdo ayaa makhluuquna adiga ka haybaysanayaan hadba intaad ilaahay taacadiisa iyo diintiisa aad naftaada ku mashquulisid ayaa makhluuqa kalena baahidaada loo diro baahidaada ku daboolayaan man kana fi haajati akhihi kana Allahu fi haajatihi walaalkaaga muslimka markaad u gargaaraysid ee gargaarkiisa aad ku maqan tahayna adigana gargaarkaaga ilaahay baa kugu maqan ogow alfirso walaalkaaga muslimka ee islaamnimadu niga dhaxaysaad u gargaaraysaa oo ilaahay ajar kaga doonaysaa waad u khidmaysay waxbaad u qabatay waad u shafaacad qaaday ergaad u noqotay ergo ya waad la socoto waad raacday meel baad u raacday muraadkiisii saad ula soo qomiso adigana baahidaada ilaahay baa ku daboolaya ogow marka sirta noloshu waxa weeyaan ilaahay azza wa jalla xidhiidh fiican la yeelano qalbiga wuxuu ku raaxaystaa waa ilaahay dhikrigiisa khalqigu waxa ilaahay kugu sakhiraya waa ilaahay taacadiisa waxa qalbigaada ku nuuraya waa ilaahay dhikrigiisa waxa arsaaqada lagu waasiya waa ilaahay taacadiisa waxa maaragtaanay nolosha caafimaadka aad ku heshaa waa ilaahay taacadiisa cibaada inaku maanta waxa u haysanaa dad badan u haystaan cibaadadani islaamnimadu iyo diintu inoogu yeedhayso hadday soo tahay hadday salaad tahay hadday xaj tahay hadday zaka tahay hadday diin laga shaqeeyo tahay hadday diin dadka la bara tahay hadday diin la barto tahay haddii xijaab iyo astur la qaato ay tahay waxaan u haysanaa cibaadadu in aakhiro waxtarkeedu ka bilaamayo may adduunyadana aad joogto noloshaada yare gaaban waxay ku hagaagaysaa waa ilaahay taacadiisa xidhiidh fiican la yeelo allah bas إلهنا إنك أوباه جزاك الله خير شيخ الله إلهي إنك أوباه كن لي كما أريد أكون لك كما تريد كتاب طريق الهجرتين إمام ابن قيم الجوزي رحمه الله قصده كشيغي نبي الله موسى عليه السلام markuu nabi shucayb ariga uu jireeyay dhul wuxuu ariga ku raacay maaragtaan iyaga dhurwaagu ku badan yahay ariga marka la raacayna lama jeefsan karo geeliya looda marka la raacayo waa la jeefsan karaa laakiin arijuruhu ma jeefsan karo waayo dacwada ayaa ka dafaysan dhurwaaga ayaa ka qaadanaya Musa alayhi salaam uu daalay marka deema geed buu hoos fadhiistay baa isagoo daalan dhinacna uga baqayo dhurwaaga inuu xoolaha ka qaato ka dafo ayuu yar jeefsaday hurdadii baa la tagtay mar dambe markaa nabi Muuse uu baraarugay ushiisiibu waaye ila ulbu sita mogta markaas arigii buu dhex yimid wuxuu arkay dhurwaa ushii nabi Muuse haysta alayhi salaam oo ariga neefka baal martaba u soo weecinayo ku soo celinaya markaas nabi Muuse yaabuu sidaa u eegay waa dhurwaagu ariga uga baqayba u soo ilaalinaya markaas la haatif dhawaaq buu maqlo lagu yiri kulli kama uriidu akunu laka kama turid ya Musa sidaan anigu aan doonaya hadaad ii yeesho sidaan adigu aad rabtana anaka ku yeelanaba ilaahay ku yiri sida rabbi doonayo hadaan yeelo sidaan inaku doonana ilaahay noo yeelay dad badan baa kula noloshan maanta fahmi laanahay nolosha hadaad cibaadada ka dayayda macaankeyga ma fahmi karaysid waad wareeri هذا وخي هذا وريرسنا ملك الموت كوي من اوغو لكن هذه حريرك الهي انا تكيسنو اون ايمانك اسلام نمدا صلاه عباده دينتينو اي نغا نقوتو ماركتان دقن او ايسن نغا نقون دغيسي كليا او دينتو دقن اي نغا نقوتو waxaad arkaysaan adduunka dusheedaan janno ku galana janno dadka adduunka ku nool bal waa afar qayboodba waa imisa afar qaybta koobaad waa nin adduunka dusheeda inta la joogo janno ku jira maalintuu dhintana laakiin naar buu galaya kow ka labaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu galaya laba ka saddexaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira cadaab ayuu ku jira laakiin markuu dhinta janno galaya ka afraad adduunka intuu joogo janno ku jira maalintuu dhintana jannadii weyneed buu galaya dadka adduunka ku nool waa afartaaba si kale hadaan u dhigo mid waxa weeyaan waa janno ku sug
mid waxa weeyaan waa cadaab ku sug midna waxa weeyaan waa cadaab janno ku sug midna waxa weeyaan waa janno cadaab ku sug laba gaaladay khusaysaa labana muslimiintay khusaysaa labada gaaladan horta inii macnaynaya dhagaysta waa gaal weeyaan laakiin tharwa ilaahay siiyey dhaqaala ilaahay siiyey hanti buu leeyahay oo gaalnimada waxa u dheer waa hanti gaalkaasi adduunka dusheeda jannadiisii buu ku jiraa maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu ku dhacayaa addunya sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir say janna adduunyada ugu tahay kaafirka waa kaafirka hantiilaha laanna jannadiisu waa maxay halkan adduunka intuu jooga wuxuu doonuu samayn waxba ka xaaraan maaha waxa uu doonuu cuni waxa uu doonuu cabbi waxa uu doonuu daawan meeshuu doonuu mari suu doonuu u fuuli suu doonuu u socon cidduu doonuu u tegi wax haba yaraatee soo joojinaya oo qabanaya haba yaraatee ma jiro shahwadiisa adduunka dusheedu ku gudanaya kaas marka jannadiisii halkan weeyaan isaga bimacnaa shahawaadkiisii adduunka dusheedu ku gudanaya weeyaan waxa uu doonuu samayn waxa uu doonuu cuni waxa uu doonuu cabbi dharkuu doonuu xidhan suu doonuu timaha u xiiran meeshuu doonuu tegi waxa uu doonuu fuuli siduu doonuu u hadli halkan weeyaan jannadiisii isaga laakiin maalintuu dhinta maxaa u dambaysaa darhum ya'kuluu wayatamattacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuuna baa ilaahay yidhi gaalada ha cuneen baa ilaahay yidhi iska dhaaf ha iska cunaan oo ha iska tuntaan oo ha iska raaxaystaan oo hididiladuna ha degto hididiladu waa maxay waxaabaan samaynay waxaabaan samayn doonnaa waxaabaan gaadhnay waxaabaan soo wadnaa kolba cilmi baan gaadhnay macluumaad kalaan keenaynaa horumar baan adduunka ku soo biirinaynaa ilaahay baan la ilowsiinayaa laakiin waxaa ilahay yidhi gadaal dambaysa ogaan doonaan baa ilaahay yidhi أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كورن بقى نبي محمد لقول لي هي هذا ندون قدوش هذا يرجع راحنا كواس كدمنا وحي الله يبغى هي وكوي مادو غيري دي ما كوي من الزقف أجل شيء بقى كودينين ده ما حكوا حاجة تمتعي أدون قدوش هذا كسر راحيستين هذا وحبه ومترين بقى إلى هاي ويلو بدونان كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بنك قيامة مركز السوء تاقان بل لو يدين لأورندونا أرلا دوشيدي إمسات كسور نقاتين مركابي أورندونا المالين أما مالين بركين أو يتمتع عدوك كسور تمتعين كرسور حاجتين مجرو marka gaalka sarwada haysta ee hantiilaha bimaana jannadiisi waa halkan jannada loo jeeda waa maxay shahawadiisa halkan uu ku gudanaya wuxuu doono dhan waxa nafsadiisu ay doonto oo dhan halkan uu marka ugu sameeynaya markuu halkan ku dhameystana waxa ilaahay yidhi fasawfa yaclamuuna marka u dambaysa kaasi waa kaas gaalka labaad waa gaalkee waa gaalka faqiirka waa gaal laakiin gaalnimadiisa faqri baa u dheero darbi jiif weeyaan meelaha buu khamriga intuu cabuu darbiyada ku dhacaa adduunka dusheedii sidan uu ku yahay oo cadaab buu ku jiraa aakhire markuu tagana cadaabkii weynaa buu gali walciyaadu billaah xadiis waxaa jira fa ina ashqa alashqiyaa man ijtamaca calayhi faqru dunya wa cadaabu alaakhira fii shucabi aliimaan buu ku sheegay imaam bayhaqi raximahullah dadka adduunka soo maray ka ugu khasaaraha darani waxa weeyaan ee ugu hooga badani waxa weeyaan waa ninka adduunka dusheeda faqri ku haleelay aakhirana cadaabtii aakhira lagu tuuro walciyaadu billaah labada kale muslimiintay khuseeyaan waa mid adduunka dusheena cadaab buu ku jiraa laakiin markuu aakhiro tago insha allah jannu gali ilaahay raxmadiisa ka quusan mayno waa muslim adduunka dusheeda islaamnimada kuma dhaqmo macsi buu iskaga jiraa qaflad buu ku jiraa diinta dhinac uu ka haystaa dhinacna diinta kama haysto adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa waxa maanta adduunka dhiig daadanaya waa dhiigga islaamka haddaan maanta lahaa innaka dalkeenna soomaaliya aan ka soo jeedno kulligeen soomaali baan iska wadanahe waa dad isku caqiide ah isku luqo ah isku madhab ah isku diin ah isku dal ah
وقوم كان يكون الودن كنا ودن كان يمسك قبيل بكونول يمسك وضب بكونول يا شيخ دوري أفرت صومه واحد قبيل سكولين ما دركتين ما هي لماذا إنكم مسلمين وشهادين إن القبيلة سكوكو دمين ومال والبا كما قال سمر والبا من البلاد قال ما كان دحي ويا اسلينيا ريح الديي ريح غفا اسلينيا ما السبب وترك الدين ويان ما دام الدين تسدي الا دونيا انو قبسن ويني عذابك ادونك كجرنا اوغادا عذابك ادونك كجرنا ان دد مسلمين او اشهادنيا ديغود ايس حلال شدان اي اسدعان او اي اسبوبان او اسكو حد قدبان او اسحسدان او اسحنتان او اسدميان oo qofka kale dhiigiisa u xalaashado maxaa keenaya waxa weeyaan waa godobta diinta islaamka laga gala lagu dhaqmi waayay marka diintii la baran waayay la isku xukumi waayay laga shaqeyni waayay lagu dhaqmi waayay la isku xiriirin waayay ilaahay jalla wa ala muxuu sameeyay marka qulubteeni baa ilaahay markaas ku dhiftay waynaka arkaya wadankan dhowr iyo 40 qowmiyadood baa inagula nool qolo la hadlaysa ma jirto nabad baa lagu wada nool yahay إنكينا نبض باكوضا نولا نبض باكولا نولا أو أرزاقات كو هايسنا أو أمني كو هايسنا أو دين تاني سحر الرياضة أو كو هايسنا ودن كيني أكسو جينينا أيضا ودن كينو بقول مسلم اسكو أفكري أي وديهينا عذاب أكو سعودو عذاب كسوا قبيل كوا نوع من العذاب ويان لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض النبي يقول aniga dabada gaalnimad dib ha ugu noqonin buu rasuulku yiri barkiina kale oo qoorta ka jar oo dhiigiina xalaashataan haddaad aragto ummad islaam u nisba sheeganaysa oo ninba kale dhiigiisa u xalaashaday xadiiska waxa uu nabigu sheegaya islaamnimo ma waxaas gaalnimadii dib loogu noqday jaahiliyadii ogaada cadaabka marka muslimiinta diinta aan ku dhaqmin ay ku jiraan dagaalka qabiilka kamida qaxootiga kamida qaxa ayaa kamida umada 8 albaab jahannam loo furay ee dhulka gaalada u soo socota ayaa kamida waa cadaab nooc min alcadaab inuu muslimku yiraahdo maanta dhulka islaamka nabadi ma taalo oo tacliini ma taalo oo dhakhtar fiican male oo nabadgelyo ma taalo oo arsaaqad ma taalo aye arsaaqada ilaahay baa haya walaakiin isagu wuxuu yiri arsaaqada yurub bay taala amniga ilaahay baa haya walaakiin isagu wuxuu yiri nabadgelyada yurub bay taala caafimaadka ilaahay baa haya laakiin isagu wuxuu yiri caafimaadku wuxuu yaalaa yurub iyo mareykan buu yaalaa wixii ilaahay laha ayaad u nisbaysan Soomaha dad kale waa wuxuu ilaahay ka bada marka adiga dadkeeni inaga baxay ee dhulkeena ka baxay dhulka wada u baxay oo dhan maanta waxaan oran karaa 80 ama 70 mujtamacii inaga tagay way ku daayeen ogaada in yar baa ka nool maanta in yar baa damiir leh oo dadnimadii iyo diintoodii si haysata shalay mu'tamarkii dhamaaday culimadu ay soo gabagabeeyeen ayaan dhalinyar ka timid Minnesota ka yimaadeen iyagoo dhowr ah markaas aniga iyo Sheekh Cabdirashiid ayay u yimaadeen oo markaa bay miskiin nagula tukadeen way noo warameen markaa aan 2004 bay ugu dambeysay qaaradaas waxay yiraahdeen bariga aad timaadeen waan maqalay dadku way fiicnaayeen oo muslimiin bay haayeen oo dadku masaajid ay u badnaayeen laakiin maanta xaga kale beerta loo batay xaga beerta ma taqaanaan xaga balwada iyo khamriga iyo fisqiga loo batay bay yiraahdeen ee noo soo gurmada noo kaalaya waa dhalinyar waliba qaarkood halka bay ku dhasheen dhulka gaalada oo muslimiintu ay ku siiyaan waa cadaab ugu ma ha raxmad marka muslimka diinta aan ku dhaqmaynin adduunka dusheeda cadaab ku jira laakiin aakhiro markuu tago arrinkiisu ilaahay buu hor yaalaa in shaa cadabahu hadduu doonana ilaahay waa cadaabi hadduu doonana ilaahay waa u naxariisan taasi waa baabka ilaahay bay u taallaa laakiin ka afraad baan u socdaa ee dhageysta waa mid adduunka dusheeda janno ayuu ku jiraa markuu dhintana jannadii weynayd buu galayaa waa muslim mu'mina oo adduunka dusheeda ilaahay sharcigiisa ku dhaqmaya oo diinta ilaahay ka shaqaynaya oo diinta ilaahay ku dhaqmay oo ummadda baraya diinta oo diinta noloshiisa ay ka muuqato muslimkaasi adduunka dusheeda wuxuu ku jiraa janno maalintuu dhintana jannadii weynayd buu gali doonaa insha Allah dhahada yaa u diyaar janno ku sugan u helo insha Allah dhahada
جنة جنة كسب إلهي هاي نسيه إبراهيم الأدهم رحمة الله عليه أي الله قشاق يسوق صدح مع الموضوع عنتعنن أي رنجري لو يعلم الملوك وأبناؤهم ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف ونن صدح مع الموضوع عنتعنن هلين وأنن عنن ومساجد اسكا اعتكافسا مر أمضو علمك براع مر إسكا علمada wax ka barta mar ilaahay buu bariyaa mar dadku ilaahay xaqiisa ugu yeedhaa saddex maalmoodna waa qatan yahay waxa uu leeyahay dhageyso boqorada iyo wiilashoodu nolosha aan ku jiro haday ogaan lahaayeen seef bay iga qaadan lahaayeen buu ama jadal macaanka aan dareemay raaxada meesha laga raaxaysto maaha dar fiican oo jirka loo xidho aqal fiican oo la dhisto gaari cadoo la wato magaazaan weyn oo la furto may raaxadu waxa weeyaan waa qalbigan oo ilaahay jalla wa ala ku tacalluqma oo garataa waxa adduunyada ka dhacayo dhawaa qadar ilaahay adigana wixii ilaahay ku qadaray mooyaane wax kale kugu dhicmaayaan wixii ilaahay ku qoray mooyaane wax kale heli maysid waa inaad garataa ilaahay jalla wa ala qof kasto adduunka jooga wixii ilaahay u qadaray buu helaya wax kale heli maayo marka janna Allah inooga dhiga adduunka janna ku sugan insha Allah dhahada Bilal al-Habashi radiyallahu anhu ardaah markuu dhimanayay xaaskiisu ku dul barooratay ku tiri waa xasrataa markaasuu dhaha kala qaaday maxaad leedahay waa dumar iska qalbi jilicsan oo markaa waa iska barooratay naaq baroortan iyo baroor diiqdan iska dhaafo waxa tiraahdaa waa farxataa maanta waa farxad iyo dhabuudi markaasay ku tiri maxaa ku farxa waadiga iga dhimanaya sakaraadkii baad wuxuu gadan nalqa al-ahibba muhammadan wa sahbahu anigu baritole qofkan la kulmi ma taqaana muhammad alayhi salatu wassalam ya saxaabadii baa la kulmaya buu ka yiri yakoo faraxsan bay adduunka ka baxayeen oo dhimanayeen lana noloshana adduunyada iyagu may dayicine waa ka faa'iideysteen kumay ciyaarine ilaahay bay ku garteen kumay shahawaadkooda kumay raacine ahkaamta ayay raaceen adduunyada may camirine aakhirada ay camirteen aakhirada markay hagaagsadeen nolosha adduunyaduna waa si hagaagta markaas inagu maanta waxaan isku daynay inaan adduunyada dhisno oo qurxino waan dhisnay hadana dadkii maanta raaxo ma hayaan qof kasta waa calacalaya maanta fa ilaahay jalla wa ala hanu soo noqonaha toobadkeeno khaasatan dhulkana ilaahay baana keenay wanagu abad ku dhalateen baan u maleyntiina badane ilaahay baa dhulkana inna makansiyo inna dajiye Soomaa hinde amni ma ku haysanaa arzaaqad baad ku haysataan diin baad ku haysataan dacwad baad ku haysataan nabadgelyaad ku haysataan Soomaa hinde hadaba asbaabta waxa soo nicmada ay noogu daa'imaysa waa maxay quraanka ilaahay ku sheegay alladina immakannahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatu al-umur ba ilahay tabaaraka wa ta'ala kuwa dhulka aan makkansiin dhulka aan dajinno asbaabta dhulka ay ku makkansadaan waxa kamida salaaday ogaan ba ilahay hadii dal kale aad ka timiday oo nin walba waan ognahay nin walba meel buu ka yimiday goboladan waxa ka iman Keenyadeena ku yaala Soomaalidu ay leedahay ama dalkiiba laga yaabaa in laga yimido loo shaqeeyay halkan hadii ilaahay dhulkan ina keenay oo dadka dhulkan joogana ma aragtaan ay dhib inoo geysan oo nabad iyo barwaaqo aan kula noolnahay waxa la doonayaa xaq baa la inagu leeyahay ilaahay ina abuur xaqiisa han ilaalino oo inagu ka muslimahan qof bila salaada dadkeena lagu arkin qoys walba qof bila salaada lagu arkin aqaamu salaata ba ilaahay salaaday oogan bimaana isaguna waa tukanaya weeyaan awqaadeedii buu ilaalinaya aqoonteedii buu leeyahay dadka kalena waa u yeedhay wuxuu yiraahdaa salaadaha tukanayna mariya wa aatu zakata zakadana way bixiyaan buu ilaahay yiri maal qabeenadeenan haddaad muslimiinta inagula nool magaaladana fuqarada ducafada masaakiinta ee mustaxiqiinta oo zakada hadii zakada la siin lahaa qof baahan oo miskiin oo faqir lagu markan laana tiradina ma badno muslim ka soo magaalada ku nool waxa uu noqon lahaa qani buu noqon lahaa baahi bini aadam ka kaaftoomay buu noqon lahaa oo sharaf leh oo amaru bil ma'ruf dadkee wanaaga faraya dadkee
dadkan aad la nooshihiin ra'sul macruuf ibn Abbas wuxuu yidhi waa tawxiidka dadka laa ilaaha illa allah baa loogu yeedhayaa dadka islaamnimada la gaarsiinayaa dadka waxaa la gaarsiinayaa tawxiidka loogu yeedhayaa wixii wanaag ee sharcigu faray baa la farayaa waraasul munkarna waa maxay yanhawna canil munkar waa maxay munkarka dadka ka reebaysaan waxaa la yidhi raasul munkarna waa shirkiga waa gaalnimada kufriga iyo gaalnimadana ummadda waan ugu digaynaa oo leedahay ka daayo ka toobadkan ilaahay uga soo noqda